isku soo noqod waxaana qaybta meel walba joogta oo markale muuqaal cusub ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta gaar ahaan arinta weyn ee Ronaldo iyo United ka dhex taagan. Ronaldo oo ka wahla maray United iyo United oo soo jawaabtay. Ronaldo oo ku qoslaya Manchester United gacalkaada markii aad joogto meel ku laga jecel yahay aad joogtana waa sidaan oo kale. Ninka wareysiga qaaday ee 90 daqiiqo Ronaldo wareysanaya oo arin sir hoos dhiibayo. Ronaldo miyuu ku beeri doonaa kooxda kubadda cagta Gunners? Haddii aad muuqaalka hesho walaal garay kana subscribe noo saar. Horta arintii Ronaldo muuqaalkiisa 90 daqiiqo marba waxba la soo dhigayaa muuqaal majalada The Sun marba waxba la soo dhigayaa wax walbana waxa ku dhex jiro muuqaalkaas waxyaabo aan macquul ahayn. Ronaldo wuxuu ka hadlay arrimo badan ka tagistay Real Madrid ku beeristay Juventus, Manchester United ku soo laabashadiisii sababta United ugu soo laabtay cid ku qalqaalisay dadka ku dhigan ka daba hadlaya sida Nicky Wayne Rooney oo kaleeto arrimo badan ayuu ka hadlay. macalinka kooxda kubadda cagta ee Erik ten Hag oo kaleeto yiri xushmad ima muujin ana xushmad uma hayo Nicky Rala faayo oo dardaray marka muuqaalkii in badan dadku way ka dharagsan yihiin oo arinta Manchester United kufsashada u geystay ninka iyo baadilka iyo caayda oo la dawamaray waa arin la wada og yahay laakiin muuqaalka qayb xasaasi ayaa ku jiro halba wax ayaa la arkayaayo. Manchester United ninkaas sida ugu soo biiraba xil ciyaareedkii la soo dhaafay oo goolasha u dhalinay 4 gool ku dhaweed iyo xil ciyaareedkan Ronaldo kuma qanacsan United oo maadaama ninkan asigoo wada kale u socdo wadadii waxa ka soo leexiyay macalinkii hore ee Manchester United Sir Alex Ferguson marka ninka asigoo Manchester City rabo inuu ku biiro ayaa la yiri warniyo inta imaawniyo waxa iska daa marka Ronaldo wuxuu taagaya Manchester waa lagu soo qiyaamay hormar meesha ma yaalo. Manchester United 2009 aan ka tagay sida uga tagay waayo leeyahay dhanka jimicsiga dhanka musqulaha dhanka dharbadalshada all of them waxba iskama bedelin marka Ronaldo arimaasna ayuu ka hadlayo xidigaha qaar la Manchester United wuxuu ku tilmaamay kuwa waxba aan ahaynba marka Ronaldo arimahaas iyo waxyaabo badan ayuu muuqaalka ugu hadlay 90 daqiiqo ayuu soconaya muuqaalka waa hal ciyaaro toos ah u daawatay waay marka ninka kooxda kubadda cagta ee Manchester United haatan maamulo Erik ten Hag asiga ay shir degdeg ah iskugu codsaday in iskugu yimaadaan madaxda ugu sareysa United si arinta Ronaldo muuqaalkiisa ah iyo faaqdiisi xal looga keeno ama United heshiiska Ronaldo ay kansalayaan oo beeshaas ay ku gabagabeynayaan ama ninkan waa la ganaaxaya ganaax muxuu wax ka qabanayaa Ronaldo ganaax ma qabanayo waayo ninkan hadalkan wuxuu u soo tuuray oo qaraxan weyn u riday wuxuu ogay inuu dib ugu ciyaareen Manchester United arimaas waxa ka hadlay laacibkii hore Liverpool Carragher waa nin dhib badan oo Ronaldo marba waa ku taagan yahay waa nin dhanka kale u janjeera ninkan ayaa yiri Manchester United dhamaan dadka Manchester 99% Ronaldo ma ku qanacsano wayna ka soo horjeedaan ayuu taagan yahay marka dadka la jiro waa dad fara kooban marka arinta Ronaldo oo sida niyadda ah ugu hadlay waxay ka tagistay Real Madrid. Ronaldo ayaa yiri ka tagistay Real Madrid waxay wixii ugu adkaay aan sameeyo yiri waana qaladkii ugu weyn ee kubadda cagta aan galo yiri waana mid kaliya aan ka shalaynayo. Ronaldo ayaa sida wareysigiisa ku yiri wuxuu yiri haddii aan hadda awoodo in waqtiga dib loo celsho Real Madrid waxaan ugu ciyaari lahaa yiri si lacag la'aan ah si free ayaa Real Madrid ugu ciyaar lahaa waa kooxda ugu weyn adduunka waana kooxda taariikhda ugu weyn haysato ayuu yiri Real Madrid waxay ila dhaqmayno yiri sida boqorkii oo kaleeto. Ronaldo markuu wuxuu taagan yahay Real Madrid meel iga jecel yahay ahayd Soomaalidu horta hore wax ugu maamad meel laga jecel yahay ta ka tagto meel laga necbi ayaa tagaysa marka Ronaldo taas ayaa ku dhacday Madrid wuxuu taagan yahay waxa kaliya aan ka shalaynayo waa ka tagisteedii oo Real Madrid aan ka soo tagay ayaan ka shalaynaya marka United oo wuxuu yimid mar kursiga keedka la gelinayo mar isaga ciyaarta loogu dhameynayo marka Erik ten Hagna waa nin asiga ba si kale ah ciyaartoyda xoogaa ninkan iyo Erik ten Hag khilaafkooda hadii xasuusto ciyaar Ajax iyo Real Madrid Ajax iyo Juventus u dhaxayso comeback oo ku sameeyay ayuu ka hadlay arrimo badan marka Ronaldo muuqaalkaas waa ku burbursaday nimankii Manchester United ninkii xirada tababarka Portugiiska iskugu diyaarinayaan World Cup-ka maanta sawirada laga soo qaaday waxa kamid ah kuwan Ronaldo oo dhool cadeynaya oo qoslaya tababarayaasha xulka Portugiiska Ronaldo Sanchez iyo ku-xigeenkiisa ayuu la dhool cadeynayo markii aad la joogto ehelkaada waa sidaan oo kale markii aad joogto meel aad ku qanacsan tahay adigu wax walba ka tahay waa sidaan oo kale waa iska dhool cadeynaysa marka Ronaldo qaraxas wuriday
shaqadiisna maahano waxa qeylqeylinaya iyo waxa dhahaya Ronaldo wuxuu yahay inta ka dhacda maal Ronaldo Manchester United markuu u ciyaaray ma uu ku qanacsaneenba trainingkeeda markii uu joogay xataa kuma qanacsanen qosol wuxuu u muujin jiray qosol aan niyada jirin oo ayaga oo lagu qancinay laakiin Portugiiska markuu joogo waa dareemi kartaa odayga waxa arkaysa sida uu qanacsan yahay meesha uu joogo wuxuuna laga dareemayaa inuu joogo meel uu asiga amar ka bixiyo aniga waxaan leeyahay Nicky Bruno Fernandes ah niyahow Ronaldo adaa Portugiiska markii la joogo waa ogtahay odayga meesha asaa wax ka ah Manchesterna adaa kabtaneedu qeylqeylinaysa laakiin Portugiiska waxa kama shaqeynayaan Ronaldo marka arrimihiisii sida ay ahaayeen waana trendka maanta ayuu ahay warbixinada ugu waaweynay muuqaaladiisana 90 daqiiqo muuqaalkii 90 daqiiqo soconaya kiskis ayaa loo soo deenayaaba halba wax ayaa la soo dhigdhigaya marka waan arki doonaa muuqaalkaas iyo waxyaabaha gudihiisa ku jiro oo wali aan la baahin marka Ronaldo sanadkan wuxuu rajeynayaa ku guuleysiga World Cup iyo xulka Portugiiska arin kale tooqishana oo jirto oo shaaciyay ninka wareysiga qaaday ee Ben Morgan la yiraahdo ayaa yiri Ronaldo waxa laga yaabaa inuu Arsenal ku biiro sababtoo ah ninkan waa nin Arsenal taageero horta marka la eego ninka wareysiga qaaday marka ninkan asiga ayaa doonaya inuu ku qalqaaliyo Ronaldo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Arsenal laakiin waan arki doonaa wax walba ka soo kordhay muuqaalka channel la garay kana subscribe ma soo goodbay